is aragtaha boondaawadyaal ku soo dhawaada warka BOS Somali TV qodobada ugu waaweyn oo daawan doontaan waxa kamid ah go'aamo xasaasi ah oo ka soo baxay kulamadii mucaaradka ay ka wadeen magaalada Muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo haweenka beelaha hawiye oo ka wada hadlay xaaladda kala guurka dalka ciidamo taabacsan lafta gareen oo baxsadka ciidanka dawladda Soomaaliya oo gaaray gobolka Gadow mas'uuliyiinta maamulka waqooyi bari oo ka qayb galay isku soo bax roobdoon ah oo ka dhacay caasimadda maamulka waqooyi bari Turkiga iyo Soomaaliya oo bilaabay waji cusub ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Daacish isu soo baxay roobdoon ah oo ka dhacay degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer qaybo kamid ah saraakiisha ammaanka caasimadda dalka oo loo soo xiray tababar aqoon kororsi ah wararka dibadda aad warkeen ku daawan doontaan waxa kamid ah Iran oo qabatay maraakiib marayay maranbiyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz iyo xiisada cusub oo ka taagan bariga dhexe qodobadaas ayaa daawan doontaan daqiiqadaha soo aadan وأربعة taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha afraad Abriil sanadka 2026 ku soo dhawaada daawadayaal qodobadii aad hordhacooda daawateen oo intaas ka dhameystiran siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo haweenka beelaha hawiye ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladda kala guurka ee dalka uu marayo sida uu warkan ku faahfaahinayo warsoo saareheena Maxamed Cali Siyaad siyaasiyiinta mucaaradka oo maalmahan kulamo kala duwan ka waday magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan wada tashi la yeeshay haweenka ka soo jeeda beelaha hawiye kulankan waa mid muhiim ah oo diiradda lagu saaray xaaladda kala guurka ee dalka iyadoo labada dhinacna ay isdhaafsadeen aragtiyo ku saabsan jihada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sidii xal waara loogu heli lahaa caqabadaha jira haweenka ka qayb galay kulanka ayaa soo bandhigay talooyin iyo aragtiyo la xiriira doorka haweenka ee geedi socodka siyaasadda iyagoo carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in haweenka si buuxda looga qayb geliyo go'aamada masiiriga ee dalka dhanka kale siyaasiyiinta mucaaradka ayaa bogaadiyay kaalinta haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka beelaha hawiye iyagoo tilmaamay in haweenku ay lafdhabar u yihiin bulshada isla markaana ay door weyn ka qaadan karaan nabadeynta iyo dib u dhiska dalka kulanka ayaa sidoo kale lagu falanqeeyay xaaladda amni tan siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee dalka iyadoo la isku raacay in la xoojiyo wada tashiyada noocan oo kale ah si loo helo midnimo iyo isafgarad guud oo dalka lagu hogaamiyo xilliga marxaladaha kala guurka ay jiraan ugu dambeyntii labada dhinac ayaa ku baaqay in la sii wado wada hadallada iyo wada tashiyada si loo xaqiijiyo xasiloonida siyaasadeed iyo mustaqbal wanaagsan oo ay wada wadaagaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhanka kale madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka warbixiyay natiijada ka soo baxday kulamadii ay ka wadeen magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee dalkeena Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka warbixiyay natiijada kulamadii maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho oo ay lahaayeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar kamid ah ururada bulshada rayidka iyo culimada Soomaaliyeed Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in kulamadaasi ay ahaayeen kuwo wada tashi ah isla markaana diiradda lagu saarayay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ah ee dalka uu ku jiro sidoo kale waxa ugu baaqay dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay la timaado hanaan daahfuran oo wada hadal ah si loo gaaro xal siyaasadeed oo loo dhan yahay waa inaan tilaabo qaadnaa waa inaan muujinaa dhibaatada dalka ka jirta taas waxay keentay inaan u yeerno dadkii aan idin sheegnay way culimadu ka mid yihiin duubabka dhaqanka ay ka mid yihiin haddana dadka noo balansan haweenku ay ka mid yihiin maanta inala joogan ururada bulshada rayidka ganacsatada iyo dhibanayaasha si aan u qaadano tala aan u midaysano dawladnimada kuma dhisna xoog yani mesela marka qaar waxa laga yaabaa ciidana la dhisay diyaarada la keenay kana la keenay hatta haddii taa waxa xoogan horta sharciga waa waxa xoogan cadaaladda waa xoog qof leeyahay xoog qof leedahay macna ma sameeyo xoogga shabaab soo xoog ma taageersana xoogga shabaab maya maxaa u diidanahay cadaaladda dawladdu hadday jidkaas marto marka maxaa dhacay haddii qofka Soomaaliga la dilo oo la dhaco oo la barakaciyo maxaa shabaab uga duwanta bilcagsi waa ka xanuun badanta dawladda adiga ahayd inay ku shaqeyso oo u soo halgantay oo u soo dhibtootay oo xuquuqda u lahayd sharciga oo ku dhaartay madaxweynaha dadka inuu adeegayo dawladdu inay khadamaad bixinayso waa caafimaadkii waxbarashadii inay ka shaqeynayso
intiina hadda meesha joogto qof intuu shaqo raadiyo soo helaa midna ku jiraa qof inuu gacanta ka qafma hina maya waxa loo socdo waxa waaye shahaadadaada inaad dirto khibradaada inaad dirto oo la fiiriyo lagu yiraahdo waxa shaqada waxaad buuxiso shuruudihii iyo ma helin maxay la shuruudaha buuxi weysa ma jirto hadda maanta qof shaqo soo heli kara xildhibaanadii sinnaay oo la soo wada doortay midna waxa waaye dhulaa la siiyey midna waxaa la yidhi waa la ganaaxay maba imaan karaba maxay ahaato shirarka xataa ma imaan karo laba xildhibaan oo la soo doortay oo laba deegaan maxaa loogu saleeyay waxaan rabo ogol yahay iyo ma ogola siyaasadda saas ma labada xildhibaan oo la soo doortay waa simeeyeen xuquuqda u simeeyeen waajibaadka marka waxaas inaan anaga iska aamusno iska fariisano anaga waxaan u aragnay inay tahay yani runtii mas'uuliyad darro mas'uuliyadana gudanayna waajibkeena gudanayna shalay anagoo intaan ka dhalin yar aan dadkan iyo dalkan banaanka u istaagnay ilaahayna waa nagu guuday haddana waa u taagannahay runay naga tahay maalinna kama hareen inta aan nool aad iyo aad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhanka kale ciidamo taabacsan madaxweynihii hore ee dowladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdulcasiis Laftagareen oo baxsad ka ah ciidan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray gobolka Gedo ciidamo taabacsan maamulkii hore ee koonfur galbeed Soomaaliya ee uu hogaaminayay Cabdulcasiis Laftagareen ayaa gaaray degmada Luuqa duleedkeeda ee gobolka Gedo kadib markii ay isaga soo baxeen deegaanka Awdhiigle dhaqdhaqaaqyadan ayaa yimid xilli ay sii kordhayaan xiisadaha la xiriira amniga iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya warar laga helayo ila wareedda deegaanka ah ayaa sheegaya in ciidamadan loo diiday in ay gudaha u galaan degmada Luuqa iyadoo maamulka degmada uu ku sababeeyay arrimo amni iyo in cabsi laga qabo isku dhacyo ka dhaca gudaha magaaladaasi ciidamadan ayaa la sheegay in ay qorsheeyeen in ay uga sii gudbaan dhanka degmada Doolow balse waxa arintaasi si adag uga horyimid dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda federaalka ah ayaa amar cad siisay maamulka degmada Luuqa iyo guud ahaan aaga u dhaxeeya Luuqa iyo Doolow kaasi oo dhigaya in ciidamadan aan loo ogolaan karin in ay gaaraan ama ay ka gudbaan deegaanadaasi talaabadan ayaa la rumaysan yahay in ay qayb ka tahay dadaalada lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee aan hoos iman taliska dowladda dhanka kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo xalay gaaray degmada Bardaale ayaa wali ku howlan abaabul iyo qorshe ay ku dabagalayaan ciidamadan si loo xaqiijiyo amniga loogana hortago isku dhacyo hor leh xaaladda guud ee deegaanadaasi ayaa wali kacsan iyadoo dadka deegaanka ay muujinayaan walaac ku aadan suurtagalnimada dagaal ka dhaca halkaasi haddii aan si degdeg ah xal looga gaarin xiisadan taagan dhaqdhaqaaqyadan ciidan ee ka socda gobolka Gedo iyo deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa muujinaya xaaladda siyaasadeed iyo midda amni oo aan wali deganayn taasi oo u baahan feejignaan iyo xal degdeg ah si looga fogaado iska hor imaadyo saameyn ku yeesha shacabka mas'uuliyiin ka tirsan maamulka waqooyi bari Soomaaliya ayaa ka qayb galay isku soo bax roobdoon ah oo ka dhacay caasimadda dowladda goboleedka waqooyi bari Soomaaliya ee Laascaanood sida uu warkan Laascaanood ugu soo diray waliyeena Cabdirashiid Xasan Wala magaalada Laascaanood oo ah caasimadda maamulka waqooyi bari waxaa maanta lagu eegay salaada roobdoonta iyadoo ay jirto xaalad abaareed oo saameyn xooggan ku yeelatay deegaano badan oo ka tirsan waqooyi bari isu soo baxan ballaadhan ee roobdoonka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka oo ugu horeeyay madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdilqaadir Axmed Aw Cali culimaadudiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan mas'uuliyiintii iyo culimadii halkaas ka hadashay ayaa si wada jir ah la weyne uga bariyay inuu u soo dedejiyo raxmadiisa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka waqooyi bari oo wajahaya xaalad abaareed oo aad u daran waxay sidoo kale ku baaqeen in bulshadu ay isku duubnaadaan iscafiyaan isla markaana ay iscaawiyaan si loo helo naxariista eebbe ee roobdoonka dhanka kale culimada ayaa xusay in roobdoonku uu yahay mid ka mid ah dariiqooyinka diinta islaamka ee lagu baryo alle marka ay abaaruhu dhacaan iyagoo shacabka ku dhiirigeliyey inay badiyaan ducada sadaqada iyo toobadda alle dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa bilaabay waji cusub ee dagaal ee ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Daesh sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Cali Siyaad
dowladda Turkiga ayaa qaadaysa tallaabo cusub oo istiraatiiji ah oo ku saabsan amniga geeska Afrika iyadoo si cad u shaacisay inay kordhinayso taageerada militariga iyo midka sirdoonka ay siiso Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga waxa uu sheegay in Ankara ay bilaabayso wajigii ugu horeeyay oo qorshe ballaaran oo lagu xoojinayo awoodda ciidamada Soomaaliya si loo wiiqo awoodaha kooxaha Al-Shabaab iyo Daesh. qorshahan cusub ayaa la filayaa inuu ku lug yeesho tababar ciidan oo casri ah, taageero dhinaca sirdoonka ah, qalabayn iyo tiknoolajiyad militari iyo la talin istiraatiiji ah. Turkiga ayaa waxa uu horay Soomaaliya uga hirgeliyay xarunta tababarada militariga ee Turkisom taa oo ku taala Muqdisho, door weyn ka qaadatay dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. taageeradan tooska ah ee Turkiga waxa ay ka dhigan tahay in ciidamada Soomaaliya ay helaan qalab iyo tababar heer sare ah. weerarada Al-Shabaabna laga yaabo inay si degdeg ah u kordhaan, sidoo kale awoodda Al-Shabaabna ay hoos u dhacdo. tallaabadan waxay sidoo kale ay muujinaysaa in Turkiga uu doonayo inuu noqdo quwad saameyn ku leh Afrika, sidoo kalena la tartamo dalalka ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Shiinaha, xoojiyana xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya. haddii qorshahan si fiican loo fuliyo, waxaa suurtagal ah in la yareeyo qaraxyada iyo weerarada, dowladda Soomaaliyana ay hesho awood ay ku maamusho dhul ka baxsan magaalooyinka, kalsoonida shacabkana ay kororto. si kastaba ahaatee, waxaa jira arrimo muhiim ah. taageero oo kaliya kuma filna haddii aysan jirin maamul iyo wada shaqayn gudaha ah. Al-Shabaab weli waxay leeyihiin xeelado dagaal oo adag. amniga Soomaaliyana wuxuu u baahan yahay iskaashi badan oo caalami ah. go'aankan Turkiga waa mid muujinaya isbeddel weyn oo ku saabsan dagaalka ka socda Soomaaliya. haddii si sax ah loo hirgeliyana, waxa uu noqon karaa fursad lagu wiiqayo Al-Shabaab, fursad lagu xoojinayo dowladnimada Soomaaliya, iyo sidoo kale bilow cusub oo amni oo dalka ka hana qaada. isku soo bax roobdoon ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer. fastaghfiru rabbakum fa innahu ghaffar يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. magaalada Buuhoodle ayaa maanta lagu qabtay isku soo bax ballaaran oo roobdoon ah, iyadoo boqolaal ka mid ah bulshada ay si wadajir ah Alle uga baryeen raxmadiisa, isla markaana uu ka dulqaado abaarta daran ee saameysay dadka iyo duunyada deegaanka. isu soo baxan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin culimada, maamulka degmada, haweenka, dhalinyarada iyo qaybaha bulshada rayidka, kuwaasi oo oogay salaada roobdoonka ah. culimada ka hadashay isu soo baxan ayaa shacabka ku booriyay in ay xoojiyaan toobada iyo camalka wanaagsan, iyagoo tilmaamay in roobka iyo barwaaqadu ay ku xiran yihiin Alle oo kaliya. waxay sidoo kale bulshada ku dhiirigeliyeen isku duubni iyo iscaawin si looga gudbo xaaladda abaareed oo loo helo raxmadii Eebbe. walbayro daciif ee loogaado maanta miyaan taashir leenna war malihin qarimin leenna war malihin waa inaan qalbiga galeynaa inaan ducafannahay simannahay taa loogaado. waxaa laabaysa yaan la degdegin mar kastoo midna soo kululaato oo dhidku da'o إلهي نقبل حوي بعده سبحانه وتعالى. لكن الدريرية على أساس كهر سنة ولا يلمي هلا حمله تصدق هذا وحوي النبي صلى الله عليه وسلم مرخو ربدون أيوه قابل بو حوي النبي وحوي ربدون تشري وحكم ده إنه إلهي بري سبحانه وتعالى صلاة دون ربدون معها أنت وحوي إلهي لبري وربدون صلاة دون بيسا قول خفاض وحويان عقبها وحويان nin kasta oo wax samoodaya maanta ha iska dambeeyo inteena aynu xasne ee waxa weeye aynu liidne ee halka looga baahan yahay faqrada halka ha yimaadeen halka waxa weeye kasta waxa weeye dhib tabanaya oo waxa faqiira oo maanta waxa weeye duruuf halka ha yimaado. laakiin ninka shaarku meelan yahay ee xoogaha wax istaawanaya soo ha dambeeyo kala uu uga sinaysa anta dirirtii awaarahan durkay iyo dacadiga jooga iyana waa dunuubaan galay iyo dacadigeennii distoor gaala keensiyo intay xeerka daba joogto inta ay kitaabkoo dayacan dacal ka dhaafayso degi mayso Soomaali weyn dan isku raacdaaye waxayna dalagay waa sharciga aad ka durugteene dib u soo noqday toobad baa lagu dawoobay. magaaladeennan baryahan dambe macaasi aad u tiro badan oo lala jaharayaa ku soo korodhay
oo ay umul khabaa'idku ay aabba u tahay oo caadi ka noqday iminka waddanka caadi ka noqday wax badan buu xambaarsan yahay oo fawaaxish iyo dunuub oo indhaheenna aynu ku aragnay cadho ilaahay baa markaa ka ratibay ka dhalanaysaa waxaa kaloo iyadana daahiro ahoo beryahan dambe muuqatay dadka qalbigooda kala jeestay oo dadka weliba labeenta dadka ee kawaadirta aad mooddo inuusan qalbigooda iyo qulubtooda iswaafaqsanayn oo gurya lagu kala shirayo oo la kala jeedo oo wax haddana laysku hayaa aanu jirin war qalbigaa laysu soo jeeday qalbiga aan midayno si ilaahay inoo aqbalo aan isa saamaxno si ilaahay inoo saamaxo aamiinta inoo dhaha qof waliba qalbi saafi alla aamiinta inoogu badiyo allah subxaanahu wa tacaala culayska hanaga dulqaado allah subxaanahu wa tacaala culayska jira aynu ognahay in badan oo ummadeenna ka mid ah ama sida loo badan yahayba aan la awoodin allah inaga dulqaado macsiyada iyo xumaanta iyo dunuubta aynu kasbannay allah subxaanahu wa tacaala inaga dhaafo allah subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa cirka madar khayr qaba allah inaga siiyo mid caama oo ummadda oo dhan gaadha allah ina siiyo mid barakaysan oo dhulka baad ka soo saara allah ina siiyo mid baraagaha iyo bilyadaba buuxiya allah ina siiyo mid caafimaad wato cudurka qaada allah ina siiyo quluubteenna allah subxaanahu wa tacaala ha isu soo jeediyo inta kala jeedda ee quluubteenna aynu ognahay allah subxaanahu wa tacaala ha isu soo jeediyo allah subxaanahu wa tacaala dhammaanteenba ha isu sakhiro inta aynu ognahay ee jilcisan ee baahan ee bugta ee aynu ognahay allah subxaanahu wa tacaala bugtada iyo baahidaba allah ka qaado allah subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu naga dhiga kuwii iskaalmeeya waxaynu walaalayaal isfaraynaa oo uga faa'iidaysanaynaa meeshan iyo salaadan roobdoonta ee aynu isugu nimi khayrka iyo wanaagga aynu ka rajaynayno waxaynu isku faraynaa walaalayaal marka aynu salaada ka baxno aynu magaalada ku laabanno inaynu niyad samiya la tagno qaybo ka mid ah saraakiisha ammaanka caasimadda magaalada muqdisho ayaa loo soo xiray tababar aqoon kororsi ah maxamed cali siyaad mar kale warkan haynoo faahfaahiyo magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa lagu soo xiray tababar aqoon kororsi ay soo qabanqaabisay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya kaasoo loo qabtay saraakiisha ammaanka ee ka howlgala caasimadda Soomaaliya tababarkan uu socday muddo cayiman ayaa diiradda lagu saaray xoojinta amniga horumarinta xirfadaha ciidamada iyo kor u qaadista wada shaqaynta laamaha ammaanka waxaana si gaar ah loogu falanqeeyay habka casriga ah ee lagu sugi karo nabadgelyada iyo la tacaalidda caqabadaha amniga ka jira dalka munaasabadda lagu soo xiray tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda iyo saraakiisha ciidamada xoogga iyo kuwa Mareykanka iyo marti sharaf kale gudoomiye Maxamed Axmed Yabo oo soo xiray tababarkan ayaa sheegay in tababarkan uu yahay mid muhiimad weyn u leh xoojinta amniga guud ee dalka wada shaqaynta tiimnimada tababarada noocan oo kala la qabanayo meeshan waxa fadhiyaan u jeeda saraakiil badan oo saldhigyada xukunta marka waxa soo dhan waxay fududaynaysaa shaqada tiimkan iyo tiimamkaas inay isbartaan hadhowna shaqadii bulshada loo qabanayo ay fududaan dalkeenu maalinba maalinta ka dambayda waa horay u socdaa horusocodka iyo horumarka uu samaynayo ka mid tahay in tababaro noocan oo kale la qaato saraakiishii shaqadu ka dhaxayda inay tababaradaas wada qaataan oo hay'ado kala duwan oo laakiin isku shaqo ka socda in hal meel lagu tababaro waxaasoo dhan waxay caddaynaysaa in diyaar loo yahay dowladnimaduna hore inay socoto bulshadana adeegga ay rabaan si fudud in loogu qabto ugu dambays waxaan rabaa inaan mahad celiyo tiimka maaragtay agaasimuhu ugu horeeyo iyo agaasimaha amniga iyo ayaga laftirkoodu qaybtii maaragtay dibdamiska oo weliba aan ogahay culays badan inuu mararka qaarkood ka soo gaaro laga rabo in shaqo laga yaabo 9 saac oo habeenimo dab inuu kaco salaada subax inuu dab kaco anytime oo dab kacana inay meeshaas gaaraan laga rabo oo weliba diyaar ay yihiin markasta oo ay heegan ku jiraan dabkaas culays uu ka soo gaaro mararka qaarkood ma sahlana dab ma sahlana kacay suuqyada marmar gubta waxa gubta guryo waaweyn oo isku xirana gubta waxa soo dhan waxay rabaan tababaradan waxay fududeynayaan sidii tiimku ay uga qayb qaadan lahaayeen sida ugu fudud oo dabkaas loo dami lahaa asagoo maaragtay damage badan ama culays badan aagiisa ayaa laga rabaa waa mahad celinaya sida agaasime heeganka ugu jirtiin saraakiisha hay'adaha ammaanka socda halkan fadhiyaan ayagana mahad celinaya waxaan idin rajaynayaa guul inaa wada shaqaydin si gaar ah waxaan rabaa safaaradda Mareykanka oo markasta
tababarada noocan oo kala fududayda in maaragtay dadka Soomaaliyeed la siiyo ayagana aad iyo aad aan rabaa inaan ugu mahadceliyo macadka tababaradana laga faa'iideysto saraakiisha amniga iyo hay'adaha kala duwan kulligood ha ka faa'iideystaan ayaguna macadka daraasaadka amniga dabcan hay'adda dhexdeedu ku yaala oo noo sheegay agaasimaha ka socda dabcan in laga faa'iideysto ayaga laftirkoodana ay wax u faa'iideeyaan diyaar u yihiin marka meeshaas laftirkeedana cilmi weyn ayaa jire ha laga faa'iideysto hadduu ilaahay yiraahdo mar kale waxaan rabaa inaan iraahdo waa mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa tababarkan meeshaan aad ku qaadateen inuu maaragtay si ficil ah uu u galo dadka wax loogu qabto hadduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin si gooniya waxaan rabaa inaan macallimiintii tababarka bixiyey iyo safaaradda intaba aan u mahadceliyo maalin wanaagsan hadduu ilaahay yiraahdo weli waxaad daawanaysaan warka VOS Somali TV oo idinkaga imaanaya xarunta magaalada Muqdisho markana qodobada ugu waaweyn wararka dibadda Iran ayaa waxa ay qabatay maraakiib marayay maranbiyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz xiisada u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka ayaa mar kale cirkiis ku shareertay kadib markii ciidamada ilaalada kacaanka Iran ay qabteen maraakiib marayay maranbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz falanqeeyo siyaasadeed oo ka tirsan jaamacadda Tehran ayaa sheegay in talaabadan ay tahay jawaab toos ah oo Iran ay ka bixisay cunaqabatayn iyo xayiraad uu Mareykanku saaray sidoo kale waxa uu sheegay in xayiraadda lagu hayo Iran ay ka hor imaanayso shuruucda caalamiga ah isla markaana loo arki karo ficil dagaal qabashada maraakiibta ayaa loo arkaa fariin cad oo Iran ay u dirayso Mareykanka si looga qaado cadaadiska Iran waxay aaminsan tahay in weerarka lagu qaaday maraakiibteeda 24 saac ka hor wada hadallo la qorsheeyay uu jabinayo xabad joojin la sheegay in ay jirtay sida uu sheegay falanqeeyaha Mareykanku waxa uu doonayaa in uu cadaadis dhaqaale ku saaro shacabka Iran si ay ugu kacaan kacdoon ka dhan ah dawladooda guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad kala socoteen VOS Somali TV kulanti dambe nabadgelyo